wafdigii wadanka Soomaaliland ka socday ee madaxweynaha Soomaaliland hogaaminayay ayaa haatan waxa ku soo kordhay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo ka yimi in labada wasiirba kana mid aha wafdigii heerka qaran ee shirkii ku dhexmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya wadanka Turkiga haddaba wasiirka arrimaha dibadda iyo in wasiirka madaxtooyada ayaa waxaan jecelahay bal in aan wax ka weydiiyo shirkii halka ka dhacay walow aan madaxweynaha ka wareystay booqashada bal maadaama labadan mas'uul ay hadda ay ka yimaadeen wadanka Turkiga ayaa waxaan jecelahay bal in aan ku horeysiiyo Maxamed Biixi Yoonis oo aan iraahdo sacaadatul wasiir bal waxaad horta nooga warantaa qodobadii ka soo baxay shirkii ka dhacay Turkiga. bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay sidaad ula socoto aniga iyo xirsi iyo shan nin oo kale guddiyo madaxweynuhu magacaabay inay ka qayb galaan wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa tagay dalka Turkiga 4 cisho socday wadahadalladaasi aad iyo aad baan u dadaalay haddaan nahay waftigii Soomaaliland ka socday inaanu danta Soomaaliland oo muhiimadeedu tahay gooni isu taageeda xorriyadeeda iyo sidii laba wadan oo walaalo noqon lahayn labada wadan oo hadlayeen aad uga shaqeynay wadahadalladu waa fiicnaayeen waxa ka soo baxo ugu murti weynaa si ugu muuqato arrinka suuqa oo maanta markii ugu horeysay aan isla garanay in la cambaareeyo oo aad loo cambaargareeyo dilkii foosha xumaa ee dalka reer Soomaaliland ku dhacay taasoo aad loo garowsaday aanan aad ugu farxnay waxa kale oo ka soo baxay arrimo badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in secretariat joogto ah laga sameeyo dalka Turkiga sida wadahadalladan u noqdaan wadalaha serious waxaanu ka wada hadallo kale sidii road map loo sameyn lahaa sidii loogu talagali lahaa inay hadii loo baahdo aan khubaro ama looyaro caalami ah arrimaha iyaga dhex galaan sidii aan uga wada hadli lahayn ee wargelin lahayn hay'adaha caalamka waaweyn annaka iyo Soomaaliya iyo Turkigu iyo wadan iyo maaragtay arrimo badan oo kuwa la mid ah oo aad u wanaagsanaa marka waxaan filayaa inay guulahayd waxaan filayaa inay wadahadalladan si socon doonaan aan insha Allah aan gaari doono sidii ugu horeysay ee dalka Soomaaliland uu gaaro xorriyadiisa iyo midnimadiisa waanad mahadsantahay runtii wasiir xirsi ayaan waxaan doonayaa bal inaan weydiiyo wasiir xirsi waxa jirta in go'aamo iyo heshiis meesha uu ka soo baxay qodobo la isku afgartay ma jiraan qodobo aan la isku afgaran dabcan mar walba caadada tahay shir walba oo la tago in qodobana la isku afgarto qaar la isku afgaran waayo dabcan anaga kulliba qodobadana wadanay sidii wasiirku sheegay oo ay ugu mudnayd madaxbanaanida iyo qarannimada Soomaaliland inay jiritaankiisa ictiraafaan oo ay waxa weeye aqoonsadaan oo ay garwaaqsadaan in Soomaaliland iyo Soomaaliya laba wadan kala baxay ay yihiin baa ugu weynayd dabcan kalamaana qodobkii ahaa inaanu labadeedii si waxaan soo ictiraafno oo kala guranno oo dhameysano laakiinse qodobadii maanta aan isku afgaranay baanu kala guranay waxaan u qaybsanaa heshiiska ama communique-ga la soo saaray qorshe hawleedka ama geedi socodka wada hadallada ku socon doonaan iyo qaab dhismeedkiisa oo ay ugu mudnayd in mabaadi'da guud waxa weeye lagu heshiiyey ay ka mid ahayd in ay qiraan oo garwaaqsadaan oo maanta ay ahaato maalintii koowaad ay meel ku qoran tahay inay meel ku qoraan xasuuqii iyo gumaadkii loo geystay bulshada reer Soomaaliland sidoo kale sida uu wasiirku sheegay qodobo badan oo yani wax ku oola ayaa ku qoraa marka qaar lagu heshiin way jiraan kuwa lagu heshiin baa la qoraa kuwa lagu heshiin waayay waa lagu heshiin waayay markaad sacaadatul wasiir markaad eegto qodobo ayaa isku heshiin weydeen horta waxa weeyaan qaranka Soomaaliland mar walba wasiir iyo madaxweyne iyo wadan shacab oo maanta shacabka Soomaaliland baa arrinka goostay gooni isu taaga iyagu haddii aanay qodobka aanay qirayn maxay markaa wada hadalladu ay macna sameynayaan dabcan way qirayaan oo runtu siday tahay qof yar iyo qof weyn adduunka caalamku waa ogsoon yahay runtu waxay tahay inay dadka reer Soomaaliland goosteen in ay gaar isu taagaan arrinkaas arrin shacbiga ka yimid weeye arrin la qarin karayo maaha arrin ay ummadda reer Soomaaliland iyadu lafaheedu u goostay masiirkeeda weeye taasoo maanu caalamku ku soconaya cid qasbi karta Soomaaliland ma jirto waa laga yaabaa inay muddo qaadato laakiin aakhirka waxa weeye dadka reer Soomaaliland talada ay goosteen ee gooni isu taaga
inay soomaaliya noqdaan waddan jaaro ay walaalayihiin wax wada qabsan karaan laakiin ka gedisan waa mid aan cidina bedeli karin ayana way ogsoon yihiin saasayna u dhici doonta insha allah. wasiir xirsi maadaama aad somalilan iyo soomaaliya ay hor fariisteen ma oran karnaa qodobka laftigiisaba aqoonsi ah markaad dhinac ka eegto? dabcan somalilan iyo soomaaliya dabcan hor fadhiiskeedu waa markii shanaad maaha markii koowaad. aqoonsiga midna waa aqoonsi caalami ah oo inaynu kala guranno oo aynu kala qaadanno waxa weeyaan qolo waliba ay iimaansato waxeeda oo anaga dalkayga iyo dadkayga waa ku kalsoonay qolo waliba ay dalkayga dalkeeda ku kalsoonaato laba dalo jaaro walaalaan ay noqono ama midna waa nooca midna waxa weeye in la soo fadhiisto la wada hadlo kaas yani waa markii shanaad la isugu yimaado fadhigii shanaad la isugu yimaado 2 sanadood ama 3 sanadood muddo ah shirar waaweyn oo beesha caalamku joogta baa la qabtay mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 marka taas dabcan waa aqoonsi waana muuqataa oo yani taasha kuma jiro. qodobka aad isleedahay saacadat alwasiir waydun kaga bixi kartaan shirka haddii ay soomaaliya ay ku dhaqaaqdo waa qodobkee baad odhan kartaa waa qodobkaas ugu muhiimsan? dabcan dee marka wada hadalladu ay laba dowladood wada hadlayaan waxyaabo badan oo isku afkaran waayaan baa jira waxyaabo badan oo marmarka qaarkood ku kala kacaan baa jirta hase muhiimaddu waxa weeye in ay wada hadalladani socdaan in guul laga gaadho in si maaragtay civilized oo hagaagsan loo wada hadlo waxa garo dad waanad la socotaa hadda waxaa nagu dhex jira dowlado kale oo ay Turkigu ka mid tahay talooyinkan meesha ku soo qaadnay waxaa ka mid ah in haddii loo baahdo aan dowlado kale keenno inaanu keenno ashkhaas inaanu hay-adaha caalamka wargelinno sida wada hadalladu u socdaan marka dabcan de waxaa muhiima uun in ay wada hadalladii midho dhalaan midhahaasoo aan filayna maanta inay kuugu horreeyey ka bilaabmeen oo sidaa uu walaalkay xirsi u sheegay anna aan kugu sheegay ay xasuuqa tahay oo wax qiimo weyn annaka noola tahay waayo dadkayga waa la baabiyey waa la rusheeyey dowladaha intay ka kaceen hargeysa baamgaraynayey dadkii baa qaxay dadkii oo qaxayaa la dilayey in maanta la garowsado la yidhaahdo dembi baa laga galay xukunkii foosha xumaa ee dictatoriga ahaa siyaad barre oo dadka reer somaliland u geystay taa lafteeda ayaa aqoonsi weyna oo aan ku faraxsannahay inay walaaladayadu fahmeen oo yidhaahdeen dembaa laga galay waa xasuuq baa dhacay dad baa waa loo gafay dhibaato weyn oo foolxun baa ka dhacday halkaa noo ah runtii wax aad iyo aad weynaan dadkaygu de ay fahmaan adlis in la garabsaday arrinkaa culus ee maanta muddada badan madaxayga ku jiray. runtii waa iyadoo uu inoo soo gabagabay waraysigu wasiir xirsi qodobkaa haddaynu ku noqonno xasuuqa ah ma waxay aqoonsadeen inuu ciidamadii siyaad barre oo rajiim ahaa ay burburiyeen jamhuuriyaddii somalilan markaa oo gobolladii waqooyi ee soomaaliya ahaa ma saasay aqoonsadeen mise waxay aqoonsadeen in ay qarankii soomaaliya ay mas-uul ka ahaayeen burburkii loo geystay iyo xasuuqii loo geystay somalilan? dabcan qarankii soomaaliya inay xasuuqa iyo burburka u geysteen ayay aqoonsadeen oo dee dowladdii rajiimkii militariga ahaa waxay dowladdii soomaaliya xilligaa jirtay dowlad walba oo dhaxasha kursigeediina waxa lagula xisaabtamayaa wixii dhibi ay geysatay dowladu way isdhaxlaan marka dowladdii dhaxasha ee calankeedii sidata ee waxa weeye sheeganaysa dowladnimadeedii ee waxa weeye fadhida kursigeedii baa lagula xisaabtamaya marka iyagaa lagula xisaabtamaya maaha macnuhu qof baa loo jeedaa maaha macnuhu qabiil baa loo jeedaa maaha macnuhu waxa weeyaan cid gaara la ataagay waxay tahay ujeeddadu dadkii reer somalilan ee xasuuqa loo geystay ee diyaaraduhu intay hargeysa ka kacaan oo bamgareeyaan ilaa xadka intay ka gudbayeen ee ka tallaabayaan ay garaacayeen haweenka iyo carruurta shacabka noocaasa la laayey ayaa waxa weeye inay garwaaqsadaan oo ay qirtaan oo ay waxa weeye ay tahay genocide tahay ay runtii tahay arrintu oo yani arrinta la isweydiinaya ay qiranayaan taa weeye qirashadeeduna maaha sida aan sheegay shakhsi iyo qabiile waxa weeyaan ciddii geysatay inay dowladdii soomaaliya ahayd dowladdii soomaaliyana loo haysto lagulana xisaabtamayo waxa weeyaan ayna tahay dee qadiyadda somalilan iyo bulshadeeda wax ah arrin aad ugu weyn. ugu dambayntii qodobka intayn leeg baydun ka murmaysan inay qirtaan in ay xasuuqaa geysteen soomaali weyn? runtii buu sahlanay muddo badan buu nagu qaatay habeeno badan buu nagu qaatay aakhirka waxaanu isla garannay inaan nahno atrocitieskuna waxa weeye xasuuq waxa weeye dil fool xun oo cadowtinimo ah
oo dad la xasuuqay oo la dilay oo morales la mariyey inay ahaayeen markaa mudday nagu qaadatay laakiin waanu ku faraxsannahay inay maanta documentka aanu saxanay ku jirto atrocities oo xasuuq oran isku afgaranay inuu xasuuqaasi dhacay sidaa walaalkii xirsi uu sheegayna inay ahayd dowladdii siyaad barre ee militariga ahayd ee wakhtiga xukunka haysatay aad iyo aad baanad mahadsantahay iyo aad baan idinku mahad celinayaa sacaadat alwasiir maxamed iyo xirsi aad baan u salaamantihiin